Joe Biden waa madaxweynaha dalka Mareykanka waxaana lagu tilmaamaa in uu yahay shakhsiga dunida ugu awoodda badan. Dadka ka soo horjeeda waxay inta badan ay sheegaan in awoodda Biden si kastaba in loo adeegsan karo. Madaxweynaha Mareykanka waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalkaasi. Dalal badan oo caalamka ka tirsan ayaa sidaan si la mid ah madaxweynuhu uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida oo ay Soomaaliya ay ku jirto dalalka nidaamkaasi aaminsan. awoodda gacanta ugu jirta madaxweynaha dalka Mareykanka wuxuu wareejiyaa oo kaliya marka uu madaxweynaadkiisa u dhamaado. awooddaasi oo uu ka mid yahay kaar boorso ku jira sida uu isaguba madaxweynihii horeeto ee xilka kaga horeeyay uu ku wareejiyay. kaarka aan ka sheekeynayno ama aan doonayno in muuqaalka maanta aynu ku eegno waa mid iska caadi ah. waa kaar uu ku qoran yahay lambarka sirta ah ee loo adeegsado marka la ridayo hubka halista badan ee nuclear-ka ama marka Mareykanku uu doonayo in uu adeegsado hubka nuclear-ka. waxa uu kaarka awood u siinayaa madaxweynaha in gantaalada ridada dheer ee nuclear-ka uu xilligii uu doono uu adeegsan karo si uu u rido isagoo talooyin ka helaya saraakiisha sarsare ee ciidamada dalka Mareykanka. gantaalka nuclear-ka xambaara waa midka ugu awoodda badan oo ilbiriqsiyo gudahood halkii lagu rido wixii ku nool oo dhan baabi'in kara. Mareykanka oo keli ah ma ahan dalalka ku hubaysan hubka nuclear-ka balse dalalka kaleeta haysta waa ay kooban yihiin oo waxa dhammaan ay gaarayaan ilaa 9 dal. wadamadaasi ayaa waxay kala yihiin Mareykanka, Kuuriyada Waqooyi, Israa'iil, Hindiya, Pakistan, UK, Shiinaha, Faransiiska iyo sidoo kaleeto wadanka Ruushka. bamka atomikada ah sidee loo qarxiyaa hadaba? madaxweynaha Mareykanka ma aha oo kaliya ah ninka dunida ugu awoodda badan balse waqti xaadirkan dalkiisa waxa uu haystaa tirada hubka nuclear-ka ee ugu badan waxaana xilli waliba ay awoodaan in ay ridaan hubkaasi. gantaalka nuclear-ka waxaa loo sameeyay qaabka madaafiicda la gami karo waxaana hubkaasi inta badan lagu xiraa maraakiibta badda quusta, buuraha dushooda iyo saldhigyada ciidan ee daafaha caalamka ay ku leeyihiin. dalka Mareykanka in weerar hubka nuclear-ka ah la qaado ama la adeegsado kaliya waxa awood u leh madaxweynaha Mareykanka oo kaliya. khubarada waxay sheegaan in lacala haddii Ruushka ama Mareykanku ay gantaalo isdhaafsadaan in labadaba ay awoodaan in 30 daqiiqo gudahood ay ku duqayaan meesha uu gantaalka uu ku dhacayo. Mareykanka ayaa si gaar ah u awooda in uu burburiyo aagga laga soo tuuro gantaalka oo idil. dhinaca kaleeto haddii cadow uu Mareykanku uu leeyahay uu dhanka badda weerar uu kaga soo qaado waxa uu Mareykanku awoodayaa in 15 daqiiqo gudahood uu weerarkaasi jawaab degdeg ah oo hubka nuclear-ka ah uu kaga bixiyo. arrimahaasi marka ay dhacaanna madaxweynaha Mareykanka waxa uu haystaa waqti aad u yar oo ku go'aansado in la qaado weerar dhinaca nuclear-ka ah iyo in kale. waa taasi sababta keenta in meel kasta oo madaxweynuhu u safrayo in ay la socoto boorsada yar ee uu ku jiro kaarka lagu amrayo hubka nuclear-ka waana boorsada uu sido shakhsiga ka dambeeya madaxweynaha mar waliba uu diyaarad ama sidoo kale mar waliba uu safar aadayo. boorsada kaarka lagu ilaaliyo waxa loo yaqaanaa kubadda nuclear-ka. boorsadan sidoo kaleeto waxa ku jira aalad isgaarsiin oo madaxweynuhu uu kula xiriirayo dad gaar ah oo ay ka mid yihiin madaxda istiraatiijiyadda xarunta dhexe ee nuclear-ka iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka. kaarkan boorsada ku jira waxa sidoo kale nidaas ahaan loogu yeeraa kaarka buskudka. kaarka cajiibka ee loo yaqaan buskud waa midka madaxweynaha Mareykanka ka dhigayo midka ugu awoodda badan dunida uguna sareeyo maadaama uu awood u siinayo inuu amar uu ku bixiyo si loo adeegsado bombada nuclear-ka. sanadihii 1980 madaxweynihii dalka Mareykanka ee xilligaasi Jimmy Carter ayaa la sheegaa in hadda ka hor uu kaarkaasi ku dhaxilmaamay suud uu xirnaa taasi oo lagu dhaqay. arrintan waxay soo bilaabatay sanadii 1973 xilligaasi uu socday dagaalkii u dhaxeeyay Israa'iil iyo sidoo kale Carabta. dhanka kaleeto madaxweynaha xilligaasi ee Mareykanka ayaa isagu ahaa shakhsiga inta badan kaarka aanan ku qaadan jirin boorsada lagu adeegsado balse ku qaadan jiray jeebkiisa. haddaba su'aashu waxay tahay bal ka waran haddii madaxweynaha Mareykanka si lama filaan ah uu amar ugu bixiyo in weerar nuclear ah la qaado sabab la'aan. Bruce Balah oo ah wariye aqalka sare ka tirsan waxa uu sheegay in xaaladan oo kaleeto ay madaxa guddiga isku dhafka oo ay ka mid yihiin taliyaasha ciidamada ay u baahan yihiin in ay madaxweynaha warkiisa
ay qaataan iyaga oo baaritaanno kaleeto samaynaya, laakiin suurtagal maaha in si degdeg ah hore looga qaado weerarka uu amray madaxweynaha, sababtoo ah dadka noocaas oo kaleeto ah ee ka hoos shaqeeya madaxweynaha ayaa loo tababaray in ay adeecaan awaamirta ka soo baxa madaxweynaha. sidaa darteed, haddii madaxweynaha uu si lama filaan ah uu u bixiyo in la qaado weerar nukliyeer ah, looma badinayo in amarkiisa toos uu u fulayo, wayna yar tahay in fursadda noocaasi ah ay abuuranto.